بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاشر كمان عن كهذا investment waxa loo yaqaano ama maalgelin. maalgelinta intaan sameeyay waxaan fiirinaynaa report ayaan fiirinaynaa iyo saameyntiisa marka dambe soo aan aragno reports baan imanaya, then company and financial, then balance sheet standard kaas ayaan imanaya. ilaa ay hadda waxa dhacdo aan gelinay ma jirto weeyaan. maalgelin si aan u sameeyno waxaan ka soo qaadaynaa dhacdada ugu horeysa ee iyo B-daas ayaan gelinayaa. mid kasta owneriskii Cabdikaadirka iyo Maxamedkaas wuxuu ku soo maalgashaday 100,000 waxa lagu shubay checking account ayaa lagu shubay. maalgelin marka la sameeyo inta badan waxa la yimaadaa company ayaan imanaynaa, then make general journal kaas ayaan imanaynaa, then taariikhda ayaan iska saxaynaa, taariikhda xilliga la jooga, then xagana waxaan ku qoraynaa deposit D-daas ka soo qaadanaya deposit number 1. adjustment hagaajin maha tigta waan ka qaadaya, then lacagta maadaama checking account lagu shubay check ayaan qorayaa ama waan abuuraya hadda ilaa hadda ima abuuro. type waxaan ka dhigayaa bank baan ka dhigayaa. bank maxaa hoos imanaya BT cash, checking, saving iyo money market kuwaas ayaa hoos imanaya. then halka waxaan ku qorayaa checking account, checking account, then lacagta aan ku qorino maxay noqonaysaa ama debitka dhinaca debitkan ku shubayna 200 ayay noqonaysaa, 200,000 ayay noqonaysaa. tab ayaan lahayn xagana waxaan ku qorayaa faahfaahinta ama waa maalgelin initial investment made by the owners ay sameeyeen weeyaan ama ownerku uu sameeyay. xagana lacagta ruuxi soo maalgashaday ayaan magaciisa oo ku qoraynaa, then add ayaan leenahay equity ayuu noqonayaa maadaama soo maalgashaday. waxaan qoraynaa Cabdikaadir Maxamed كوما أيام بحياة capital. then لعكت وحنا ربا إن كل جبيو عبدالقادر كاس وحصان مالقشري بقول كأيام حاجة كريت لو قرية كريت كأيام لو قرية then تاب أيام لها تاب مركان له بقول كيسو حرينا أصلا وحن سينا إنه صام مالقشري محمد كاس أيام كسو قاضي إنه مالقشري محمد then وحن لهاي محمدنا وإكويتي أيون قان هي then wuxuu noqonayaa Cabdullaahi Maxamed capital markaan dhaho asagana boqolkii soo haray ayaan asagana dhinaca credit u qoray. then dhinaca credit waxa ku soo dhacaya boqolka Cabdikaadir iyo boqolka Maxamed, then totalka maxay ahaayeen 200. dhinaca debitka maxaa ku jira checking accounts oo lagu shubay 200. labadan boqol yaa soo kala maalgashaday mid kastaba 100 ayuu keenay. dadna total debit iyo total credit waa equal, waa isku mid weeyaan. marka equal noqoto ay isku mid noqoto hadda waan save garan karaa. save ayaan leeyahay. save markaan dhaho waxaan fiirinaynaa saameynta ay yeelata ayaan fiirinaynaa. save ayaan leeyahay. save markaan dhaho waxaan imanayaa reports company and financial balance sheet standard kaas ayaan imanaynaa. then askeedu hadda muxuu noqonayaa 200 ayuu noqonayaa. equity guna muxuu noqonayaa asaguna 200. total liability and equity na waa 200 weeyaan. equity yaa soo maalgashaday Cabdikaadir Maxamed 100 buu soo maalgashaday, Cabdullaahi Maxamedna 100 ayuu soo maalgashaday. labadan 100 inuu isu geeyo waxay noqonaysaa 200. ilaa iyo hadda asadka iyo total liability and equity waa isku mid weeyaan. oo total asadku wuxuu noqonayaa 200 buu noqonayaa, total liability and equity na waa 200 weeyaan. dhacdadan saameynteeda saas ay noqonaysaa kolka maalgelin markii la sameeyo waxa dhimanaysaa company and financial company badanaysaa, then make general journal ayaa imanaysaa. maanta halkaas ayaan ku hakinaynaa. subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.